ما أرق دور شقة في عضها ولقي الصومالية كسعطة وإيه لمبر 1 تيكو ولا كغيب قلب أنا قد ده شوقة ضد يغير شيل يغير نواتشلان شيل كي يغير بو على هاي ده أنا ما أنت فرحات قارينات ضد هرب دور شيء كوسو أركي وحنا لنا هاي وأنا قد نصيب بدنا لكن ما أنت أنا ولا شوقنا وحنا لنا ضلك هره الله وضو هرب ضلك هو صعده يا جدال للعلن ضدك دور شديد كأه أو لبعتنا نلهبه ودبكنا لا جعل waxaan leenahay saaxiibayaal idka yeelimayno amni darro ma jirto dadka dhagahooda la maqashiinayo waxa way amni darrada iyo dhibaatooyinka waa hore dadkan amni darradii dhagahooda ka baxeen wadani ahay maanta dalka uu hiilinaya maanta waxay leedahay codkayga ku ilbaxay boqolkiiba boqol wacdaynaysa codkayga ku ilbaxaya maanta aad u faraxsanahay shucuurteeda lama soo koobi karo waxay ku dhiirigeliyay wax kale ma ahan waxay tahay inaa jeclahay dawladnimo waana markii ugu horeysay aan arkaayo cod iyo qof doorasho oo qofka uu cid u dooranayo oo asaga go'aaminayo waana run ahaantii wax aysan u helin horay waalidiinteena iyo walaalaheena waaweynaa oo maanta aniga oo 20 jir fursad u helay waxaan ku faraxsanahay run ahaantii shucuurteeda lama soo koobi karo wayntaas dareenkeena saaka aad buu u fiican yahay xilli horaan soo kala hadnay safku waa dheeraa marka wali safkeen ku jirnaa runtii dad badan wali waa naga sii horeeyaan marka waa maalin weyn runtii culays kasta ama cadceed kasta ama sababka dhibaatada dheer ee ka taagan qof kasta wuxuu ku iloobayaa maanta inuu codkiisa dhiibanayo oo uu codeynayo cid matal leed marka maanta dareenka ka xoog badan wax kasta oo qofka culays u maray inuu doorashada codkiisa dhiibto waxaan saakay fayl u soo galay in aan codkayga dhiibto aan doorto qofka aan la rabo ama ururka siyaasadeedka aan la rabo in ay ku guuleystaan kuraasta taalla degmada Wadajir waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan saakay helay xuquuq aniga da'daydu waxaan jiraa 35 sano xuquuq waligay aanan helin ayaan saakay helay ilaahay ayaanan uga mahadinayaa farxad weyn ay iga dhigantaa maanta ma la soo qiyaasi karo waligay allah kooble lii keen jirmaan oday codkaada ku ciil baa ma lagu doortaa ma wax door maanta igu horeyso alxamdulillah gacan oo dareen oo farxad badan weeye farxadda inta iga badataa meeshii aan ku diri lahaa dirbiga ama waxaan ku tirtay shaatiga marka waxaan leeyahay farxaddii waxaa waaye doorashadii ugu horeysay 2002 dhashay 23 sano jira doorashadii ugu horeysay waaye dadkii dhalinyartii isku soo wada bixin waa aragteen marka maanta farxad noo wanaagsan ma jirto maanta oo kale iideen oo tahay maanta oo kale hadaan heer Muqdisho ama ciyaal xamar iideen oo tahay maanta codeynaya waa ku faraxsanahay in la gaaro maalmihii barwaaqada ahaa oo qof walba codkiisa ku ciil baxo oo dhalinyaradan oo aabayaashan waxay soo arkayna aragna aad u faraxsanahay cod muxuu kaaga dhigan yahay muxuu kaaga dhigan tahay maanta noocday wuxuu dhigan yahay qofka uu haboonahay la quman oo aan saleynahay wax badan oo qabanaya inaan doorano la dhigan tahay maxaa ka filaysaa marka qofkaas marka waxa ka rabtay wallaahi qofkaas waxa ka rabnaa inuu wadankeena si horumariyo xil baa u dhiibanay wallaahi rooyin aan ku taameyno oo muddo aan ku taameyno oo aan ka maqleynay wadamada jaarkana kale sida Itoobiya kale Kenya kale inay doorasho galaan marka tan oo kale waxay la mid tahay inaan sida adduunka kale aan horumarno kale aan dadka sida wadamada kale aan horumarnay waan ku faraxsanahay inaan maanta aan dhalinyaro ah oo aan lisoo qasbin oo lisoo riixin codkayga dhiibto dhalinyarada waxaan rajeynayaa inay maanta ay tahay fursadooda qaaliga ee maanta ay codkooda ku dhiiban karaan waxaan u maleynayaa inaan ka bixi doono siyaasi iyo oday dhaqameed iyo hebel inaan ka bixi doono marka waxaan dareemayaa in ay tahay sanadkii dhalinyarada sanadkii fursadda dhalinyarada ee lahayd marka aad ugu faraxsanahay waxaan rajeynayaa hadda markii koowaad oo taariikhda aan fayl noocan oo kale aan galno inaan codkeena dhiiban oo xisbiga rabnaa aan dooranno waa maantay 57 sano la sheegaa macnaha 57 sano kadib baa la yidhaha anaga 57 sano kama warqabno laakiin waa nalooga sheekeeyey macnaha marka maantaan aan taariikhda waa markii koowaad oo fayl noocan aan galno oo cod aan la baxno farxad weyn ay noo tahay sharaf ay noo tahay dawladda Soomaaliyeed dadka gobolka Banaadir degan waana bilow xaqiiqatan oo wixii dadka laga ballan qaadi jiro wixii dawladda dalkan soo maraya ay ka ballan qaadi jireen lagan tahay qiimo gooni aan dareemayaa darajo gooni aan dareemayaa waxay ii tahay wax weyn maantay in macnaha aan halkaan imid codkayga aan dhiibtaan oo kaligaya inay la socon
ururkii aan rabay iyo xisbiga aan raban aan u codeeyey waana ku faraxsanahay waana ku qanacsanahay qof kastoo Soomaaliyana waxaan rabnaa inuu saan wuxuu rabo u doorto saakasi nabada codkay ku soo dhiibtay degmada warta nabada waaxda barwaaqo gurigaan ku dhashay ku dhagan tahay saaka inaan ka codeyna farxad ay tahay waxa waaye tan waxay cadeynayaan inaan mar labaad qofka doorasho u sageli karin ama meel kale iska codeyn karin waddankan maanta horumar u gaaray si gaar ah caasimadda magaalada waxay maanta gudbinaysaa fariin nabadeed horumartan ka balaaran jeena insha Allah